kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel walba ay joogtaan iyo si walba muuqaalkayga idiin soo gaarayo halkan waa Somali Freedom aniguna waxaan ahay Cidruus Iimaan soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa muuqaal xiiso badan oo ku saabsan dhalinyaraha khadar balse hodanka ah dadkiisuna ay nolol sarreysa ku wada nool yihiin keed dhaqaale oo aad u sarreeyana ay haystaan nidaam yar oo xasiloonna uu ka jira dalkaas khadar sidaad wada ogtihiin waxa ay haysaa ama isku haysaa siyaasado badan oo isdiidan waa dal yar oo ka kalluumaysta meel cajiib ah dhanka siyaasadda waxaanu eegi doonaa dhanka juqraafiga mandiqada ay ku taalo xasradaha ka jira xiisadaha taagan iyo iyada doorkeeda dhanka dhaqaalaha iyo dhinacyo kaleba halkan waxaan kusoo gudbinaynaa 10 xaqiiqo oo aan la yaabi doonto waxay ku saabsan tahay dhammaantood waa dalal ururo iyo kooxo iyo siyaasado iyo caqiido ama mabda'yo gaar ah oo isdiidan haddana qadar ay isku hayso wax cajiib ah marka la fiiriyo malaha waa isweydiinaysaa siday ku dhacday ama ay ku dhici karto laakiin dad badan ayaaba arrintan khadar dabcan ku yaqaan oo kula socda ma oran karnaa khadar dal xasarad iyo sidoo kale xalisba xarun u ah markaanu eegno ama aanu soo bandhigno waxa kan aanu sheegi doono sida aynu wada ognahay dunidan waxaa jira dawlado raba inay iyagu xasilooni ku taamaan weligoodna ku nagaadaan laakiin aan dalal iyo dawlado la rabin inay xasiloonidaas haystaan taa beddelkeeda ay xasarado ku abuuraan haddii aad adigu ku fikiraysa inaad xasilooni taam ah oo nagaashiye qotar dheer leh aad ku nagaato oo aad ku noolaato maxaad dalka kale uga diidaysaa kusoo dhawaada 10 xaqiiqo aan qadar ka sheekayn doono ee ku saabsan siyaasadaheeda cajiibka ah ee ay isku hayso khadar waa dawladda kaliya ee cadawyo badan isu haysa haddana danteeda ka fushata tani waxay qeexaysaa dhanka danaheeda gaarka ah juqraafiga diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha waxa ay kulansatay oo ay isku hayso haddaanu 10 xaqiiqo soo bandhigno Iiraan iyo Mareykan oo lid isku ah iyadoo saaxiib bay la tahay markaanu eegno Washington iyo Tehran waanu dareemi karnaa xasarada ka dhaxaysa iyo xiisada u dhaxaysa meesha ay gaarsiisan tahay waana laba nidaam oo isdiidan bataatan oo aan isqaadan karin waxyaabo fara badan oo mandiqadaas ah iyo meelo kaleba way isku khilaafsan yihiin siyaasad ahaan laakiin khadar waa dalka kaliya ee labadaba isku haya oo qolana aan dabcan riixin ee qolana aan soo dhaweysan arrinta kale ee labaad iyana waxay noqonaysaa dabcan Taliban iyo Mareykan oo iska soo horjeeda iyadoo saaxiib bay la tahay khadar weeye dalka aanu ka hadlayno ururweynaha Taliban ee ka jira Afghanistan muddana diidana siyaasadda joogitaanka ciidda Afghanistan ee Mareykanka oo dhawaanahan wada hadal u socdeen xarunta wada hadalka iyo martigelinta iyo martisoorka Dooxa ay ahayd dooxana labada qolaba saaxiib bay la tahay yacni Taliban iyo Mareykanka sidoo kale arrinta saddexaad waxa weeye oo inaga qarsoon badankeenana aan wada ogaan karno Iiraan iyo Yahuudda waynu dareemi karnaa heerka isfaham darro ee siyaasadoodu iyo nacaybka u dhaxeeya iyo sida isu fahmi laayihiin inay tahay dawladda labaduba saaxiib la isu haysa arrinta saddexaad al-Qaacida ururweynaha dabcan ka dagaalama Afghanistan iyo sidoo kale Pakistan iyo meelo kale dunida kamid ahba iyadu isbadiidana siyaasad ahaan oo aad bay isugu dhow yihiin haddii wada hadal iyo gorgorton iyo dhan kaleba ay noqoto arrinta shanaad haddaanu Soomaaliya u nimaano iyo dalkeena waynu ognahay ururka al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya inay laba isdiidan yihiin oo dawladdu ay rabto inay cirib tirto nimankaana iyaguna ay rabaan inay dalka ka taliyaan oo ay la dagaalamaan khadar labada dhinacba saaxiib bay la tahay oo haddii ay nimanka yararka ah xaggooda wax ka galaan khadar waa dawladda kaliya ay fulin karta ama soo dhameyn karta ama soo gabagabayn karta arrinta cadeynaysa waxaa kamid ah dhawaan haweeneydii u dhalatay dalka Talyaaniga haweeneydii Salfiya Romano ee ahayd samafale u dhalatay dalka Talyaaniga ee laga afduubtay Kenya oo ururka al-shabaab ay gacanta ku hayeen muddana Soomaaliya meelo kamid ah lagu hayay isku xirka iyo sahanka iyo u kala dabqaadidaba door bay ku lahayd ugu dambeyn haweeneydaas waa la soo daayay dalkeedii ayay ku laabatay khadar waa maskaxda hagaysay iyo mishiinka dhaqaajiyay wada hadallada Italy iyo sidoo kale nimanka kan xaqiiqda kale ee lixaad waa Falastiin iyo Israa'iil oo aynu ognahay muddada guyaalada ama sanadaha ay xiisada ka dhaxayso inay tahay dawladda kaliya isku hayso oo labada dhanba u dhaxaysa يعني إسرائيل صاحب بيلتهاي
falastiin oo u diriraya inay dalkooda iyo dhulkooda difaacdaan xorriyadoodana ay dabcan soo ceshtaana saaxiib bay la tahay. xaqiiqda kale ee toddobaad ee xiisaha leh waa ikhwaan muslimiin oo ay dab iyo baasiin isku yihiin dalal badan oo carbeed sida Masar iyo Sacuudiga. iyada xaggeeda waa lagama taabtaan oo caqiid ahaan waxaa lagu tiriyaa inay isku mabda yihiin ururkaas oo dhanka xitaa Turkidu ay soo galayso maadaama Erdogan la yiraahdo waa ikhwaan muslimiin khadariyiintu sidoo kale nidaamkaas aad bay iyagu ay isugu dhow yihiin oo yani aysan u kala fogeyn maadaama xitaa hogaamiyihii hore ee masaaridu ninka dhawaan geeriyooday ee Maxamed Mursi xitaa oo ikhwaanku ahaa. yani waxay ka turjumaysaa in ikhwaan muslimiin oo dowladaha carabta badankoodu aad ay isu diidan yihiin oo ay la dagaalamaan oo ay cirib tiraan inay nimanka kan khadariyiintu ay saaxiib leeyihiin oo aad isugu dhow yihiin. Turkiga oo ay Sacuudi iyo Imaaraad ishayaanna sidoo kale saaxiib bay la tahay. yani waxay tani muujinaysaa ilaa iyo hadda diblomaasiyadda Qatar meesha ay ka aroorto iyo halka ay saldhigato iyo danaheeda meesha ay ku qotomaan. dhinaca kale sagaal haddaanu eegno xaqiiqda sagaalaad waa Ruushka iyo Mareykanka. yani Moscow iyo Washington waynu dareemi karnaa heerka ay gaarsiisan tahay isfahmi daradooda siyaasadda, laakiin waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah inay Qatar labadaba dhan ay xulafo la tahay oo ay saaxiib la tahay oo aysan midna iminka colaad iyo xasrad gooni ah ka wada dhaxayn. halkaas waxaad ku haysaan waa sagaal xaqiiqo. yani midda tobanaad waxay noqonaysaa reer galbeedka iyo argagixisada ay dagaalka kula jiraanna iyadoo labada dhanba way u dhaxaysaa oo qolana cadaawad kala ma dhaxayso, yani qolana xiriirkeeda ma aysan jirin. tani waa 10 xaqiiqo ee aanu soo qaadanay ee Qatar u gaarka ah iyo sida ay cadawiyo badan isugu hayso oo ay danaheeda uga fushato. waa Iran iyo Mareykan oo lid isku abay saaxiib la tahay. Taliban iyo Mareykanka oo ishayaba iyadu isu dhow yihiin saaxiib bay la tahay. Iran iyo Yahuudda si lamida, Al-Qaacida, Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya, Falastiin iyo Israa'iil, ikhwaan muslimiin iyo dalal badan oo carabta sida Sacuudiga iyo Masar, Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isdiidana saaxiib bay la tahay. Ruushka iyo Mareykanka xulafay la tahay. reer galbeedka iyo argagixisaduna sidoo kale labada dhinacba way isku dhow yihiin. dawadayaal halkan waxaan kusoo gudbinay 10 xaqiiqo oo muujinaya siyaasadda cajiibka ee Dooxa iyo siday u kulansatay inay noqoto madal martigelisa mawjado xasarado oo isdiidan. waxaana tani lagu qeexaa dalkaas yar ee hodanka ah inay gundhig u tahay siyaasadiisa ama ay halbeeg u tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo danaha ay danwadaag u arkaan oo xulafooyinka iyo dowladahaas iyo ururahaasba kala dhaxeeya. sidoo kale dowlado badan ayaa jira oo sidaan oo kale laakiin Qatar ayay inta badan maanta sheekadayada iyo mowduucayagaba uu ku saabsanaa. waad ku maasantiin daawashadeena. waxaad kala socoteen Somali Freedom. anigoo Idris Maxamuud Diibaan ayaa muuqaalkan idiin soo gudbiyay. Fuad Cabdirasaaq Guri ayaan uga mahad celinaya muuqaal duubista. dhamaanteedu isku duban waxaan idin leenahay waad ku maasantiin daawashada la socodka. fadlan la wadaaga saaxiibada kale inta dib hawada ugu kulmi doono. nabadgelyo.